xaaladda nolosha xeryaha Dadaab ay tahay mid adag maadaama ay yihiin xeryo qaxooti dhibaatooyin kala duwan dadka ay haystaan ayaa haddana waxa jirta dad ay dhibaatadaasi u dheer tahay dad xanuunsanaya oo bukaan socda ama guryaha jiifa oo aysan hanti ay isbitaallo ku geeyaan iyo waxay noloshooda kula tacaalaan midna aysan haysanin warbixin arintaasi la xiriirta waxa xeryaha qaxootiga nooga soo diray Bashiir Baarud Gaxnuug بعد شرب حسين شرب على النور المهن إيجا حنوصل أون جوجو قبلادي دهب أن كحساب سنهاي أو أنت صوصنود أو إيجا حنوصل أو نب يرفعت أو إيجا جبيين أو يورف فاسنهين أو واحد عن قرآن كسر عن لهن أو واحد دين عن كسر عن لهن أو واحد مال عن كمري عن لهن aan walaalahay dadka ehelka aan ka codsanaya inay ugu soo kaalmeeyaan oo meel aan ku geeyaan lahayn wiilka iyo gabartaas way 12 sano ay iga xanuunsan yihiin nolosha wax ay haastaan ma jirto saddex wiil ay dhashay saddex wiil ay haasataa saraayadeedo ilaa qarxate wakaas ay saddex wiil ay haasataa ninkii ehelka walaalkay inuu wax isiiyo oo garab ii noqdo aan rabaa walaalay inay soo caawiyaan oo wax igu taraan aan rabaa meeshan aan joogaa meeshan aan adduunka isaan ku ah way arkaysin ehelkayna waxba aan haysanin أنا سوق أنت لبضاس وكا أو لبضي عرضك بحالكي وعرضك وعرضك وحقة أيهين ولا عليه إنا يسعى ويان عن ربا أو واحد يوصل تران أو واحد كتاع يوصل ويان أو يقرب النقدان أو واريين التصاص صناد واريين أي جات كوبا الحريين ولا عليه إنا واحد يوصل ويان عن ربا إلك أنت إسلام أمدني محمد إنا يسعى ويان إنا يسعى ويان أو ولا عليه واحد يوصل عن ربا walaalayaal ilaah subxaanahu wa tacaala mahad iska leh mar kale iyo muuqaal kale oo murugtiisa leh waxaan soo booqanay guriga hooyo cibaado shariif xuseen hooyo cibaado waa hooyo Soomaaliyeed waxa ay haysataa oo ku rafaasantahay muddo taqriiban 12 sano ah wiilkeedii curadka ahaa iyo gabadheedii ku xigtay oo labadiiba ay waalan yihiin oo xanuunsan yihiin gabadha hadda iska shaqeynaysa qalba halkan laga soo bixiyay silsilad baa lugta u xiran wiilkana waa sidoo kale waa halkan hadda uu xiran yahay geedahana ku xiran waxa maamada haysta iyada naftirkeeda maamada waxaad moodaa duruuftii iyo caqabadihii iyo dhibkii labadan ee caruurteeda ay dhashay ay ku hayeen in iyada naftirkeeda hadda aad moodid inay xanuunsan tahay walaalayaal waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala idin weydiinaynaa marka koobaad nin waliba danaha iyo muraadka u leeyahay inuu ilaahay siiyo waxaan idin ka codsanaynaa wiilkan wuxuu u baahan yahay inta aan qiyaasnay oo aragnay haddii cilaaj la geeyo la quraan saaro maskaxdiisa iyo caqligiisa inuu soo laabanayo aad buu u dhow yahay ninkan mararka qaar si fiican buu kula sheekaysani marna wuu isdabagedini mar dadka dhan buu iska caayi mar hooyadiisu daro caayi marna wuu yar quman yahay gabadha iyaduna xaalkeeda aad u liitaa waxyaalaha si waale waxa kamid ah muddo in xitaa ilmaheeda laga sii qaatay oo duruufo caqabadaha nolosha waxyaalo badan waxa jira qofka maskaxdiisa saameynayo ayaa jira walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta ah hooyadan Soomaaliyeed oo iyadaba iska xanuunsan la walwalsan la fikirsan murugta ku hayso caruurteeda in ilaahay idinkii aad ilaahay darti u soo caawisaan waxay u baahan yihiin ninkan wuxuu u baahan yahay caawimaad ah in daawo la siiyo quraan la saaro meel dhimirka la geeyo maxaa ka wanaagsan oo ka fiican qof xanuunsanaa oo miyir kale ah inaad adiga sabab u noqotid caafimaadkiisa inuu soo laabto
caqligiisa soo laabto takaaliifta sharciga uu soo fuusho cibaadaysto soomo salaado khayr sameeyo ajir inta la eg baad ku leedahay waxay la mid tahay qof aad noolaysay iyo la mid tahay waxaan ilaahay dartiisa kaga codsanaynaa hooyadan Soomaaliyeed ee miskiinta ee qaxootiyaha joogta ee labadii garab taagnaa ee indhaheeda ahaa ee ay islahayd walad saalax ku noqdaan ha ku caawiyaan xaalkooda adduunyo sidii yahay ee ku dhibaataysan in ilaahay dartiisa u soo caawisaan dad kasta oo awooda inay caawiso hooyada dhiban waxaan ka rajaynaynaa inay si weyn u caawin doonaan maadaama ay dhibaato badan sheeganayso